بسم الله. Division of fraction qaybinta jajabka jabtarka saddexaad casharka sagaalaad concept and skills fikradda iyo xirfadda fikradahan u baahannahay inaan fahanno waxa weeye saddexdan fikradood oo aasaas u ah sida la isugu qaybsho laba jajab. marka koowaad jajab inaynu fahansannahay inuu leeyahay sarreeyo hooseeya. fikirka koowaad waxa weeye isku qaybinta laba jajab mid walba waxa uu leeyahay sarreeyo hooseeya. haddii mid ka mid ah uu yahay number keligii taagan mar walba waxaad ogaataa in hooseeyihiisu hal yahay. fikirka labaad waa calaamadda qaybinta u dhaxaysa labada jajab. calaamadda qaybinta u bedel isku dhufasho adigoo labada jajab midka midigta xiga ama ka labaad sidaad u taqaano sarreeyaha hooseeyaha booskiisa geenaya hooseeyahana booska sarreeyaha geenaya sida halkan tusaalaha aynu tusay oo ah laba loo qaybshay saddex waxaad ka dhigaysaa saddex loo qaybshay labo. intaa markaa qabato waxaad raacaysaa fikirka saddexaad oo ah raac habkii isku dhufashada jajabka la isugu dhufanayay adigoo sarreeyaasha isku dhufanaya u qaybinaya hooseyaasha aad isku dhufato. halkan waxaan ku sameynaynaa tusaale yar ah oo na tusaya saddexda calaamadood intaana tusaaleheena rasmiga buugga aana aadin. matalan haddii aad hayso laba loo qaybshay saddex markaana loo qaybshay saddex loo qaybshay shan waxay noqonaysaa marka in aan fractionkeennii qaybta hore guurino oon dhahno laba loo qaybshay saddex calaamadii isu qaybinta ahaydna aan bedelno oo isku dhufasho u bedelno. fractionkeennan saddex loo qaybshay shanna aan bedelno oo aan ka dhigno sarreeyihii aan hooseeyo geyno nambarkii hoosta jiray aan kor geyno nambarkii hoos yaalayna kor yaalayna aan hoos dhigno. waxaa noo soo baxaya laba fraction oo la isku dhuftay. marka waxaan sameynaynaa marka sidii isku dhufashada caadigeena u shaqeyno oon dhahno laba lagu dhuftay shan loo qaybshay saddex lagu dhuftay saddex waxaa noo soo baxaya 10 loo qaybshay 9. halkan waxaan rabnaa inaan ku xusno marka qaybin waa soo aragnay. haddii aan wax yar aan sameyno xasuusin haddii aan isu qaybinayo 15 loo qaybshay 3 waxaan oran jirnay meeqa saddex ayaa 15 ku jirta waxaan dhahaynaa 5 baa ku jirta. marka 5 saddexaad haddii aan isku darno 15 waa helaynaa waana eber markaas. marka waxay ujeedadeenu ahaa 15 haddii saddex aan u qaybino waxaa noo soo baxay 5 oo macnaheedu yahay 15 waxaa ku jirta meeqa saddexaa ku jirta 5 baa ku jirta. marka aan leenahay marka haddii aynu laba u qaybino saddex
laba loo qaybshay saddex haddaynu u sii qaybino saddex loo qaybshay shan macnaheedu wuxuu noqonayaa saddex loo qaybshay laba loo qaybshay saddex meeqa gabal baan u qaybin karnaa oo midiiba uu noqonayaa saddex loo qaybshay shan ama si kaleba haddaan u dhaho saddex loo qaybshay shan meeqa ah baa ku dhex jirta oo laga samayn karaa laba loo qaybshay saddex hadalku saas u dhacaya marka taa maxay noqonaysaa waxaa ku jira hal iyo xoogaa waxaan ku arki doonaa tusaale kale haddaan awoodi karno mathalan haddii aan dhahno haddaynu dhahno hal loo qaybshay labo meeqa ayaa ku jirta hal loo qaybshay afar hadalkaa markaas haddaan fiirino wuxuu noqonayaa haddii aad nus laftigiisii haddii aad laba ximo meeqa hal loo qaybshay afar ku jirta haddii aad markaas samayso sawir circlekaas oo aad tiraahdo kala barto dhexda ka barto intaana waa nus taana waa nuskii laftigiisii meeqan buu noqonayaa hal loo qaybshay afar taa waxay ka dhigan tahay marka adigoo weli cabirku saaran yahay qaybtii weyneed ee halka ahayd waa adigoo markaa ka dhigay nuskaagii haddana sii nuseeyey nuskaagii baad sii nusaysay marka xibin walba waxay noqonaysaa marka hal loo qaybshay afar xibin kasta oo meeshan ka muuqata marka waxaan leenahay anagu daraasadeenna waxaanu u soconay inaynu qaybtan ogaano meeqa xaba ayuu ka noqonayaa intaas marka halka waxaan ka helnay inaan laba qaybood helaysano marka labo ayuu noqonayaa waxaad marka dib ugu celin kartaa fikirkan ah inaad sawirto labo daani macnaha uu ka taagan waxa waaye labo hal loo qaybshay afar ama laba rubuc baa ku jirta afar meelood marka loo qaybshay halkii laba ka mid ahi waa nus labadii rubac waa nus marka labadan waxay ka taagan tahay nuskii oo laba loo qaybshay laba nus ayaa meesha ku haysataa laba rubuc baad markaa ku haysataa waxaan u gudbaynaa tusaalaha marka xiga waxaan haysanaa laba tusaale oo halka aan ku muujin doono oo aan hayno waxaan nidhi marka aan rabno inaan laba isu qaybino fraction macnaheenu waxa weeye 7/8 ama 7 loo qaybshay 8 meeqa ayaan u qaybin karnaa meeqay noqonaysaa laba loo qaybshay 3 ama si kale haddaan u dhahan waxa waaye laba loo qaybshay 3 meeqa ah baan ka dhex abuuri karnaa ama ku jirta 7 loo qaybshay 8 xisaabta markaani waxay ku sahlan tahay sidii haddaba aan tusaalihii hore uga hadlay markii aad beddesho numberka waan ku noqon doonaa haddii aan space u helo tusaalihii hadda aan sawirayay fractionka hore sidiisa ayaa usoo guursanaysaa jajabka hore oo 7 loo qaybshay 8 kan labaad waa maadaama calaamadii qaybta ahayd aad u wareejisay ku dhufasho waxaa muhiim ah
kani waa qaybtii weyneeda la qaybinayay kana waa qaybshihii qaybshahan rogaynaa marka qaybshahan waxaan ka dhigaynaa hooseeyihii sarreeyahan geenaynaa sarreeyihiina hooseeyaan ka dhigaynaa waxaa noo soo baxaya marka 7 lagu dhuftay 3 8 lagu dhuftay 2 waxaan leenahay 21 loo qaybshay 16 waxaan leenahay marka improper fraction baa noo soo baxay haddaba see yeelaynaa improper fraction kan marka waxaan samaynaynaa meeqa 16 baa 21 ku jirta hal baa ku jira maxaa soo haray marka 5 baa soo haraysa 5 loo qaybshay 16 waxaan ku magacaabaynaa waa qayb baan leenahay Soomaaliga qayb kana waxaan leenahay qaybshe marka markasta waxaa la rogayaa qaybshaha qaybta sideeda u haysanaysaa qaybshahana waad kala rogaysaa oo hooseeyihiiba sarreeya ka dhigaysaa sarreeyihiina hooseeya ka dhigaysaa tusaalaheena labaad wuxuuna dhahayaa marka intaana tusaalaheena aadan waxaan rabaa inaan ku noqdo sawirkii hadda ayna tusayay maadaama spacekan uu ii deeqayo waxaan idhi tusaalaha nus loo qaybshay hal loo qaybshay 4 sidaan sawirku ku sameeyay hadda waxaan halka inaan ku xuso inaan qaabka kan aan u sameeyo si aad isugu xirtaan sawirka waxaan haystaa kan hore sidiisa u dhiganayaa calaamadda qaybtana waxaan u bedelayaa ku dhufasho labadana waan kala rogayaa 4 loo qaybshay hal baa soo haray waxaa ii soo baxaya hal lagu dhuftay 4 2 lagu dhuftay 1 halka waxaan ka helayaa 4 loo qaybshay 2 oo 2 labadana waa labadii hadda aan sheegaynay taa macnaheedu muxuu yahay taa macnaheedu waxa weeye tusaalihii aan sawiray haddii aad ku xirto halfkan ama hal loo qaybshay 2 haddii aad nuskii kala barto 2 nus baa kuu soo baxaysa 2 rubuc baa kuu soo baxaya marka waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yara ku adkaato maskaxdooda inay sawirto waxaan jajabka ahay sideebuu number caadi ah u noqday oo nusku aba yare sideeba 2 ku dhalatay labadu ma aha labadii caadiga ahaa مثلا haddii aad haysato xabad qara ah oo aad kala goyso nuskii haddii aad 2 u kala goyso 2 nus baad labadii nus baad 2 qayb ka dhigtay labadaas marka waxay noqonaysaa labada nus ama rubac aad haysato bay ka dhigantaa kama dhigna 2 qaro oo aad adigu hadda haysato kama dhigna taas in loo sawirto maskaxda maaha waxaad u sawirinaysaa shaygii weynaa ee kaamilka ah markii aad kala goyso barkii oo aad sii qaybisay weeye labadan barkii oo 2 qaybood ka dhigtay labadii qaybood bay labadan ka taagantay arrinta marka waxaa rabaa in la isku xiro sawirka aan ku tusaaleynayo iyo xisaabtii hadda waxaan ka hadlaynaa markaan qaybinayno hadda waxaan leenahay 4 loo qaybshay 7 loo qaybshay marka laga dhigay ayadiiba waxaa laga dhigayaa 2 loo qaybshay 3
meeqa xibnood noocaas waxay noqonaysaa marka xisaabtu waxay ku fiican tahay picturekeeda waan dhisi doonaa iyadoo sawira oo dadku si fiican u fahmi kara laakiin marka hore xigmadda iyo fikradda fudud aan fahanno annagoo ku dadaalayna sida ugu sahlan inaan sawirka u keenno hadhow 4 iyo 7 sideedaan u dhiganayna marka hore calaamadii qaybta ahaydna waxaan u bedelaynaa ku dhufasho waxaan leenahay lagu dhuftay saddex loo qaybshay 2 mar kasta oon calaamadan bedelo qaybshaha wax qaybinahaya waan bedelayaa asagana oo sareeyihii baan hooseeye ka dhigay hooseeyihina sareeyaan ka dhigay marka waxaan hadda helay marka 2 jajab oo aan isku dhufanayo sareeyaha kalaan ku dhufanaya hooseeyaha kalaan ku dhufanaya halkan waxaan hayaa marka 12 4 lagu dhuftay 3 iyo 7 lagu dhuftay 2 hayaa waxaa soo baxay 12 loo qaybshay 4 iyo 10 halkan ma ku dhaafi karaa marka maya kaas waxaan haystaa 2 number oo dhaban ah wax u qaybsamo oo aan ku sii yareyn karana waan helayaa marka waxaan leeyahay iyadii baan soo qorayaa 12 loo qaybshay 2 14 loo qaybshay 2 waxaa soo baxaya 6 loo qaybshay 7 6 loo qaybshay 7 halkaa ma dhaafin karo marka halkaasaan ku istaagaya waaya waxaan u gudbaynaa arrinta saddexaad su'aalaha saddexaad su'aalahan waa masalada koowaad exercise-ka ama layliga C ama A su'aashanu waxayna leedahay a group of home economic students need to divide 340 pounds of sugar 4 ways. What fraction of a pound will each student get? halkan waxaan rabnaa inaynu horta hore masalada aanu fahanno oo oranayso koox arday ah waxay u baahan tahay inay qaybiso 3 loo qaybshay 4 pound oo sokor ah 4 qaybood inay ka dhigaan 4 meelood inay ka dhigaan daba su-aashu waxay tahay qof arday walba qaybtee ayuu helayaa ase jajab ahaan waxa la qaybshay waa jajab helaya su-aashana marka waxa waaye marka hadda su-aashan masalada furfurayno waxaan rabnaa waxaana la siiyey inaan ogaano iyo waxaana la weydiiyey waxaana la siiyey sokor waxaana loo qaybinaya waa 4 afarta loo qaybinayo waa 4 qaybood 4tana 4 arday baa kala qaadanaysa marka waxaa la rabaa nambarada inaynu kala fahanno keebaa la qaybinaya marka waxaa horta nala siiyey aan aragno waxaana la siiyey sokor marka hore waa inaa qortaa maxaa lagu siiyey waxa lagu siiyey waa 1
waxaa lagu siiyey sokor oo ah 3 loo qaybshay 4 boundi waa lagu siiyey waxaa loo qaybinayaa 4 way waana 4 ardada tirada marka aad haysataa tirada ardada haddii macnihii marka sidaas aad u fariisiso keebaa la qaybinayaa qaybtii marku waa qayb ilaan waxaaba lagu sheegay qayb baa lagu yiri oo inay isku dar tahay iyo inay kala goon tahay iyo inay isku dhufasho tahay iyo inay qayb tahay masaladii bay ka muuqataa laakiin hadda waxaa u baahan tahay saa u dhisi lahayd masaladaada labadaa number keebaa hormaraya keesa dabadhigaya mathalan haddii aad tiraahdo 4tan hordhigaya oo aad dhahdo 4 loo qaybshay halkaanaan ku qorayaa si aadan ardaydu ay u aragto haddaan dhaho 4 loo qaybshay 3 loo qaybshay 4 waxaan qaybinaya waa ardadiyaan qayb ka dhigaya waxaan ardada intaan qaybso siinayaa waa sokortii marka qofku waa fahmi karaa caqli galinaysaa labada number kee hor dhigaysaa haddii aad hor geliso 4 ardadii baad qaybinaysaa sokortii baana kala qaadanaysa taa marka caqliga ma muujinayo inay caqli gal tahay oo caqliga ay ka hor imaanaysaa waxaa muhiima marka in aanu fahanno masalada dhisideeda masalada marka la dhisayo sidii aad u dhisi lahayd ayaa waxaa muhiim ah in aad fahansan tahay waxaan imaan doona masalooyin tiro nambaro intaan ka badan wata oo sidii loo dhisi lahaa ay adag tahay xal u helideeda in la xalliyo masalo waxaa muhiima marka hore dhisideeda muhiima hadda waxaan ka hadlaynaa waa dhiside marka arrinkaas sidaas mar hadduu qofku u dhiso waa u khaldan yahay kana waa sokortii saas qofka u dhiga masalada u ratiba uu khaldan yahay marka maxaa sax waxaa saxa sokorta intii la qaybsho ardadana in la kala siiyo marka meeqaa sokor haynaa waxaa haynaa 3 loo qaybshay 4 waxaan u qaybinaynaa 4 waxaan hore u sheegay haddii aad aragto number keligii taagan hooseeyo waa 1 waxaan isticmaalaynaa marka fikradihii aan soo balanay iyo xirfadihii lagu dhaqaaqayay sokorta boundiga haysano sidiisaan u haysanaynaa waa 3/4 calaamadii waxaan u bedelaynaa qaybta ahayd waxaan u rogaynaa ku dhufasho markaan rogno waxaa muhiima numberkan inaan isna rogno oo waxaan dhahaynaa halka kalarkiisaan ku soconayaa si ardaygii u arko in uu kalarkii la socdo hadda marka waxaan hayaa isku dhufasho 2 jajab waxaan leeyahay marka
saddex lagu dhuftay hal afar lagu dhuftay afar waa saddex lagu dhuftay 16 qof walba wuxuu helayaa intaas oo sokor ah bound raaci markaana boundigii raacinayna oo sugar ah qaybtu waxay xiriir si sahlan ula leedahay isku dhufashada waa ay sahlan tahay qofka markuu si fiican isku dhufashada jajabka hore u soo shaqada marka waxay kaliya kaaga baahan tahay oo muhiimadeeda ah fikradaha ama skiilka ama conceptiga aan ka hadlaynay oo bejka ugu horeeya aan ku xuseynay inaad aad iyo aad u fahanto waxaan ugu muhiimsan waa calaamadan qaybinta ah oo la bedelayo isku dhufasho loo bedelayo iyo numberkan oo qaybsho aan ku magacaabay oo divisor la yiraahdo divisor oo asana la invert gareynaya kelmadda invert waa rogid wuuna buuggan wuu dhigayaa invert waa rogid kan waa dividend waxaa inoo muhiima marka inaan nambaradan magacyadooda aan kala garanayno oo aan mid walbaba fahmayno macnuhu u taagan yahay waxaan rajeynayaa homogan wuxuu leeyahay a iyo b iyo c oo masalooyinka in laysku dayo oo laga shaqeeyo ayadoo la fiirinaya macnaha muhiima inta aadan adigu nambaradan intaad labada nambar soo qaadata aad isu qaybin inaa mid walba waxa macno ma sameynaysaa masaladu waxa ansarka kuu soo baxay ama jawaabta kuu soo baxday macno ma sameynaysaa taasaa muhiima inta aadan labada nambar intaad soo qaadata aad isu qaybin oo aadan moodin ansarkii saxa ahaa inaa haysto waxaad ku ogaan kadhaa in macnuhu macno leeyahay ayaa muhiima halkaasaan ku ekeenaa cashirkeena